guddida gurmadka abaaraha gobolka Togdheer ayaa maanta mucaawimo iskugu jirta raashin iyo biyo daawooyin gaarsiiyay deegaanada ay soo guurtada ku soo hayaameen oo abaar si xun u saameysay. mucaawinadan oo ka faa'iideysteen 600 oo qoys ayaa waxa ka warbixinaya guddida gurmadka abaaraha Togdheer oo maalmihii u dambeeyay laabay gurmadka ay ugu jiraan samata bixinta dadka abaartu ku haleeshay deegaanada bariga Soomaaliland. xaaladii markay aad iyo aad u sii adkaatay waxaan doonay inaan soo marno dhulkii waana soo marnay dhul badan oo kamid ah waxaan la kulanay in xaaladdu aad iyo aad u adag tahay kadibna waxaa la soo qorsheeyay oo guddida qaranka iyo guddida gobolka isla og yihiin in meelaha la gaarsiiyo soo guurtadu ay joogto gobolka Togdheer waliba meel ka baxsan ka soo guurtay ee wali ku hadhay raashinkiina waan Taalabuur baan ka bilownay ragii joogay ama soo guurtadii joogtay oo 60 qoys aan ugu nimi kula kulannay 60 ka qoysna wixii loogu talagalay waa u dhignay bariis iyo sonkor iyo daqiiq saliid way leedahay wax ku filan ma aha oo binaanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala baa deeqe wax kasta la bixiyaa waxba tarimayaan waa iska waxaanu halkan ku wareejinay raashin dhan konton qoys oo aan ugu talagalay inay quutaan 100 qoys sidii qaar loo qorsheeyay 100 qoys inay qaybsadaan konton qoys 100 qoys inay qaybsadaan aan ugu talagalay aan ugu talagalay inay dadkii soo guurtada ahaa iyo dadka wixii baahan ee kale oo meeshan oo ah meel aad iyo aad u go'doona oo meesha hayaanka hore aadka lagu soo hayaamay annagoo ka kooban 3 xubnood oo guddidii gobolka Togdheer taakulaynta abaaraha ah halkan waxaanu ku guddoonsiinaynaa kaamkan hagogana burca shiris ah macaawimo dhan 94 qoys 94 ka qoys 47 isu dhammaystiran weeye markaasay noqonayaan 94 qoys qaar ka mid ah waxgaradka deegaankaasi iyo qoysaskii mucaawinadan la gaarsiiyay ayaa ka daran celiyay kaalmadan gurmadka ay soo gaarsiiyeen guddida abaaraha gobolka Togdheer. Caydiid Cali Maxamed oo jooga kaamka Naaleya Dirdir waana soo gaadhay caawimadii dawladda soo bixisay iyo guddida abaarta taakulaynta waxa Ilaahay baa mahad leh idinna waxaan ka guddoonay guddida gobolka abaaraha raashin dhan 94 qoys oo la soo celiyo 47 qoys oo la bisbaaran asma wayahay deeqda waanu ka guddoonay adanna odayaasha kaamka Cabdullaahi Xaasaan Cilmi dadkana insha Allah hadii ilaahay idmo dadku waa dad isku nool galaanka marbar guddida abaaraha aad u hawshaysan aad u diifaysan ayaa noo timi waqtigan xaadirka waa waqti gaaban oo hadda 58 minute way waa qiyaasay maskaxdan ka qiyaasay waxay noo dhiibeen oo noo keeneen annagoo dogoble ah oo ahayn 220 qoys oo geel xir oo go'doona iyo reer ka kooban oo u badan reerka geeluna 16 geel yahay oo go'doona oo dadkoodii ka soo go'doomay galabkan galab ilaaha waxay noo keeneen 73 qoys raashinkood. Yaasir Cabdullaahi Kaahin, telefishinka caalamiga Star TV, Burco.